Bismillahirrahmanirrahim kulan wacan wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan oo aad ku soo saqdaan barnaamijyadeena halkan waa channelkeenu kuleenahay YouTube ee madasha wararka qodobada ugu waaweyn ee aan daawadayaal saaxiibayaal idinku soo gudbi doonana barnaamijyadan idinku soo maqan waxaa kamid noqonaya kiiska sargaal Ikraan Tahliil Faarax oo xoogeystay qaraar qaatay waliba cuslaaday shakhsiyaad aan loo maleehin ku cadaaday warar dheeraad ayaan daawadayaalideena halkan ayaan idinku soo gudbi doonaa macluumaad sir ah ayaan barnaamijkeenan ku soo qaadan doonaa hooyo qaali maxamuud guhaad waxay tiri fallaari gilgilasho kaagama harto Fahad Yaasiin Xaaji Daahirow inaga soo garbax oo kiiska Ikraan Tahliil Faarax meel ku sheeg warar dheeraad ayaan daawadayaalideena oo kiiska Ikraan Tahliil Faarax ku saabsan iyo qoyska ay ka dhalatay Ikraan oo war culus ka soo saaray kiiska gabadhooda Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo meel uu ku baxsado la iyo wada uu maro maadaama kiiskan uu isaga ku cadaanayo Mahad Maxamed Salaad agaasimaha Niza oo isagana wada dadaaladiisii ku aadanaa baaritaanada kiiskan wararkii ugu dambeeyay ayaa daawan doontaan xoge iyo macluumaad ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barrana waxa uu ku dadaalayaa sidii kiiskan cadaalad loogu heli lahaa kan gugaarida kiiskan ayuuna meel u fadhiyaa wararkii ugu dambeeyay aan daawadiyaa halkan idinku soo gudbi doonaa oo kiiska Ikraan Tahliil Faarax ku qotoma daawadayaal saaxiibayaal meel waliba aad joogtaan soo dhawaada muuqaalkan Lexar oo si share garay daawaday nagu soo biir subscribe inoo saaray channelka Furagan Baralka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muuqaaladaynu halkan idinku soo gudbino waa ku maasantahay daawaday la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiya commentigana aragtidaada saliimka inoogu reeb markaana daawaday waxaad ku soo dhawaataa faaqidaada qodobadii aynu soo dulmarnay yar iyo weyn muddo hal sano ah ayay aad u hadal hayaan kiiska ku saabsan amaba ku salaysan sargaalada maqan muddada halka sano ah ee Ikraan Tahliil Faarax culumo caam ciroole haween dhalinyaro rag iyo sidoo kale waxgarad ayaa kiiskan si isku mid ah u darsaya waliba waxa ay si isku mid ah ugu baaqayaan dowladooda federaalka Soomaaliya in ay kiiskan cadaalad u hesho saraakiishii ku eedeysnaa kiiska sargaal Ikraan Tahliil Faarax ayaa qaarkood daljoog ah qaarkoodna waa dibad joog kuwa dibad jooga waxaa lagu tilmaamay kuwa baxsad ah oo cabsanaya baqaya waliba dalbanaya in kiiskan si toos ah loo soo afmeero oo waliba aan la gudagelin cadaaladiisa kiiska Ikraan Tahliil Faarax waa mid taagan oo aan duugoobayn waliba saacadda ka sii dambaysa waa mid sii cusboonaanaya saraakiisha ku eedeysan kiiska sargaaladan maqan muddada halka sano ah ayaana waxa ay yihiin kuwa galaangal xoogan ugu jira sidii ay kiiskani uga baxsan lahaayeen hooyo qaali maxamuud guhaad oo ah hooyada dhashay sargaal Ikraan Tahliil Faarax ayaa waxa ay warbaahinta ka sheegtay in Fahad Yaasiin Xaaji Daahir agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed oo Niza oo kiiskani si toos ah u aadayay isla markaana uu meeli kale ku leexan karin hooyo qaali guhaad waxa ay tibaaxday in fallaari gilgilasho aysan kaga harin Fahad Yaasiin Xaaji Daahir isaga ayayna ugu baaqday in kiiska Ikraan Tahliil Faarax ka soo garbaxo sida ugu macquulsan uu cadeeyo xogaha iyo macluumaadka uu ka hayo ee uu qarinayo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Niza ayaa darbiyada madaxa ku dhufsanaya waxa uuna sheegayaa in kiiskan uu isaga wax raad ah ku lahayn ayna ka dambeeyaan Mahad Maxamed Salaad oo agaasimaha cusub ee Niza ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Injineer Maxamed Xuseen Rooble wasiir ku-xigeenkii hore ee warfaafinta Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Al-Cadaala iyo gudoomiye ku-xigeenka Al-Shabaab ninka lagu magacaabo Mahad Karatay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Injineer Maxamed Xuseen Rooble markii uu wareejinayay jagada ra'iisul wasaaraha waxa uu ka dalbaday ra'iisul wasaaraha cusub Mudane Xamse Cabdi Barre in uu kiiskan cadaalad u helo isla markaana ka dhabeeyo cadaalad raadintiisa oo shakhsiyaadkii ka dambeeyay afduubkii iyo dilkii Ikraan lagula kacay la soo taago maxkamad ama hay'adaha garsoorka si ay cadaalad u maraan hooyo qaali maxamuud guhaad iyo xubnaha kale ee qoyska ayaa waxa ay dhowr mar la fariisteen oo ay la kulmeen ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Injineer Maxamed Xuseen Rooble kaas oo heegan buuxa ugu jiray dharaar kasta
sidii ay Ikraan Tahliil Faarax cadaalad u heli lahayd iyo shakhsiyaadka kale ee lagu dulmay awoodda dowladnimada. madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Injineer Maxamed Xuseen Rooble ayaa aad isugu khilaafay kiiska sargaaladan maqan muddada halka sano ah ee Ikraan Tahliil Faarax. labadooda ayay baahasha ka dhex tafantay oo dagaal culus ayaa ka dhex qarxay oo ku saleysan kiiska Ikraan Tahliil Faarax. dagaalkaas waxa uu curyaamiyay xilliga doorashooyinkii dalka ka socday oo Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa dhowr marxil ka qaadis ku sameeyay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Injineer Maxamed Xuseen Rooble. Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxaa ka gooneed waqtiga in uu difaaco isla markaana uu dhabarka xijisto shakhsiyaadkii saaxiibka dowla ahaa oo ugu horeeyay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir la taliyihiisii hore ee amniga qaranka. si waliba oo ay noqoto arrintu hadda ayaga waa ay ka soo dhamaatay oo dowlad cusub ayaa dalka ka dhalatay oo uu majaraha u hayo ama hoggaanka u hayo Xasan Sheekh Maxamuud. dowladda cusub ayaana dadaal xoogan waxay ugu jirtaa sidii ay cadaalad ugu heli lahayd Ikraan Tahliil Faarax, sidoo kalena ay cadaalad ugu heli lahayd shakhsiyaadka kale ee lagu dulmay awoodda dowladnimada. Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo sidoo kaleba Xasan Sheekh Maxamuud waa laba qof oo dab iyo basiin isku ah, xilli kastana dagaal culus ayaa ka dhaxeeya maadaama Xasan Sheekh Maxamuud uu mucaarad xoogan ku ahaa Farmaajo intii uu joogay Villa Soomaaliya. Xasan Sheekh Maxamuud hadda waxa uu ku sugan yahay Villa Soomaaliya muddo markaasiba ku siman 3 bilood, waxaana iminka isaga loo sheegayaa in ay tahay xilligii uu u adeegi lahaa shacabka Soomaaliyeed, sidoo kalena uu soo faahfaagi lahaa waxyaabaha markaasiba cadaalada u baahan oo ugu horeeya kiiska sargaalada Ikraan Tahliil Faarax. Mahad Maxamed Salaad oo agaasimaha cusub ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA ayaa dhowr mar waxa uu la fariistay madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana isku afgarteen labadoodaba in maxkamadii la soo taago shakhsiyaadkii ka tirsanaa nabad iyo nolol ee dalka ka geystay gaboodfallo waaweyn oo aan loo dulqaadan karin shacabkuna aysan baxamili karin. Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa ka mid ah shakhsiyaadka la doondoonayo oo Damul Jadiid ay doonayso in la dhigo maxkamad amaba in la dhigo xabsi si kiiska Ikraan Tahliil Faarax looga guun gaaro cadaaladiisa. Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya isagu waxa uu doonayaa oo hamigiisa ugu weyn ay tahay in uu maxkamadii soo taago Maxamed Cabdilaahi Farmaajo madaxweynihii hore ee dalka, kaas oo uu ku eedeynayo in uu dalka bohol dheer ama haadaan siyaasadeed ka tuuray, dagaalo sokeeyana uu dalku ku sigtay maadaama Farmaajo uu kursiga isku dhajiyay. Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kaleba kooxdiisa kale ee ku daaban ee Damul Jadiid kuna sugan Villa Soomaaliya ayaa hadda waxa ay qorsheynayaan qorshayaal culculus oo waliba waaweyn kuwaas oo ay adag tahay in laga baxsado. dabinka ay qolayaan Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kaleba kooxdiisa Damul Jadiid waxa ku soo dhici kara shakhsiyaad ka tirsan nabad iyo nolol oo Farmaajo hoggaan ama hormuud u yahay. shakhsiyaadkaas haddii ay dabinka ku soo dhacaan waxaa macquul gal ah in kiiska Ikraan Tahliil Faarax cadaalad loo helo. hooyadeed Qaali Maxamuud Guhaad waxa ay sheegtay in fallaari gilgilasho aysanba kaga harin Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, ra'iisul wasaare Rooble, Mahad Karatay iyo sidoo kaleba Alcadaala Mahad Salaad ayayna sheegtay hooyo Qaali Guhaad in aysan ayagu ka dambeyn kiiska sargaalada Ikraan Tahliil Faarax oo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir uu isaga leeyahay kiiska aabe iyo sidoo kaleba hooyo. Ikraan muddo hal sano ayay maqan tahay ilaa iyo haddana kiiskeeda waa lagu jahwareersan yahay. shacabka Soomaaliyeed ayaana si aad u odorosaya, waxa ayna ku baaqayaan in Ikraan cadaaladii ay hesho. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaana loogu baaqayaa in uu kiiskani cadaalad u raadiyo. Xasan Sheekh Maxamuud intii uu ku sugnaa Villa Soomaaliya dhowr safar ayuu ugu ambabaxay dalka dibadiisa. safaradaas ayaana waxa ay gaarayaan ilaa iyo 6 safar, inkastoo ra'iisul wasaaraha cusub uusan ilaa iyo hadda soo magacaabin golihiisa wasiirada. Xasan iyo Xamza iyo dowladda cusub ayaana laga warsugayaa sida ay arintani u abaaraan kiiska Ikraan ee cadaalada ugu dabaqaan. wixii warar oo daawadayaal ku soo kordha waynu soo qaadan doonaa kiiska Ikraan. daawada muuqaalkan like saar sina share garay inagu soo biir
subscribe inoo sar channelka furagan balaalka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muuqaaladaynu halkan idinkugu soo gudbino waa ku mahadsantahay daawade la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiya commentigana aragtidaada saliimka inoogu reeb tan iyo barnaamijkan kiisa kale intaynu dib isugu kulmi doono nabadgelyo.